Yeah. Are you a South African national? Yes. And have you already been processed? Have your paperwork been assessed and all? No, I'm still waiting for the stamp. Yeah. inda adeeg hadda maqashid ninkaana dhalay ninkan waxaa waaye red hand waa dambiile gacanta lagu qabtay weliba dembiga ku sii adkaysanayo waa nin Zimbabwean oo baasaboor South African oo fake wato isla markaana sheeganaya inuu yahay South African xanuunsan yahay borderka lagu celiyay weliba complaints qaba soo baasaboorkiisa marka laga qaaday la arkay fursad la siiyay saxaana loo sameeyay xadka waxa lagu qabtay Zimbabwe iyo South Africa baasaboorkiisa inuu fake yahay marka laga dib loogu celiyay maadaama dhanka dhinaca dalkiisa weli uu joogay lamana caawin shabaab laga yiri marka inda adeeg wuxuu taagan yahay xuquuqdayda ayaa lagu duntay anigoo South African hada loo hadlayay wariye ayaa wareysanayo TV maxalli oo Koonfur Afrika ku yaalo oo loo wacay weliba leeyahay ninkan wareysa bal waa xanuunsanahay daawadeedii ma cunin xuquuqdeedii lagu xadgudbay taagan yahay bal aan warbixintiisa daawana bal horta. Talk about being caught red-handed. A short while ago, live on ENCA, Border Management Authority officials caught a man attempting to cross the Beit Bridge border post, allegedly using a fake passport. It was my first day where I was visiting in Zimbabwe. But what I saw, what I can see, I will never ever again visit. Because since from 6 o'clock I was here. Even now I'm still around here. Yeah. What is the reason for the delay? I don't know. No one have explained to us. Yeah. Where do you come from? Where did you travel from? I was in Zimbabwe. I went to visit a place called Gwanda. Yes. Yeah. Are you a South African national? Yes. And have you already been processed? Have your paperwork been assessed and all? No, I'm still waiting for the stamp. Yeah. And you see, it's very bad because I'm. ninkan bilowgii waa qalad ku dhacaha wuxuu leeyahay markii ugu horeysay